maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab sida warkan Boosaaso inooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cabdi Madar. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Puntland ayaa 7 nin xukun ku fulisay waxaana maxkamaddu ay sheegtay inay ku cadaadeen faldambiyeedkii lagu soo oogay 7 nin ayaa 5 kamid ah maxkamaddu waxa ay ku fulisay xukun dil ah halka 2 kamid ahna lagu xukumay xabsi daa'in raggan ayaa maxkamaddu waxa kale oo ay sheegtay in ay ka dambeeyeen dilalkii loo geystay Allah u naxariistay agaasimihii madaxtooyada Boosaaso Aadan Gaas taliye ku-xigeenkii ciidamada booliska Puntland gaashaanle sare Jaamac Saxardiid iyo xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda qalabka sida ee Puntland Maxamed Xasan Firdhiye haddaba arrintaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Puntland Cornel Cabdi Fataax Xaaji Aadan maanta maxkamadda waxay fulisay ciidamada qalabka sida ee dawladda Puntland xukumayaal gacan ku dhiiglayaal ah oo 5 nin ka kooban oo kamid ah ururka argagixisada gaar ahaan Al-Shabaabka shantaas oo kamid ah 7 loo haystay dilkii Allah u naxariistay gaashaanle sare Jaamac Saxardiid agaasimihii madaxtooyada Boosaaso Aadan Gaas iyo xeerarihii guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdi Xasan Firdhiye shantaas markaas 7 kamid ahaayeen waxkooda wax ku fulisay xukun dil ah maanta taariikhdu ahayd 8 bishii 4 Al-Shabaab kamid ahaayeen waa ka tirsanaayeen hadda waan arkaysaa qiraaladooda iyo maxkamadda wax ka hormarteen maxkamadda darajada koowaad marka waxa ku xilbaaxay xukun dil ah taariikhdu waxay ahayd 19 bishii 2012 toddoba kulidii xukunka dilka ah maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waa iyaduna 19 bishii saxaad laba waxay ka dhigtay xabsi daa'in shanna waxay ku riday dil xukun ah maanta oo ah 8 bishii afraadna waxa lagu filiyay dilkoodii ay afkaas lagu filiyay ma tahay awlaal xasan waxa weeye maxkamaddu dib waxay fulinaysaa processka hadda ku darajada koowaad ku jiraanin kuwana maxkamadda raxmaanka sare ku jiraanin kuwana waxay ku jiraanin filin sugayaal weeye marka waxay marayaan processka marayaan kadibna waxay aan dambi lahayn waa la sii deynayaa wixii ay ku cadaatay inay dambi leeyihiinna sidii maanta kale lagu filnayaa kii lagu waayo inuusan wax dambi lahayna isagoo dabaylaada oo shuruud la'aana maxkamadda xilbiisa insha Allah Xuseen Madar Somali News Boosaaso.